casharkeenan maanta waxa weeye ciwaankiisu short history waa sheeko gaaban. One day maalin maalmaha ka mida a baby mosquito waa kaneeco yar oo canuga left her mother ayaa tagtay waxayna ka tagtay hooyadeeda. Left way baxday way tagtay her mother hooyadeeda ayay ka tagtay. Anda iyo went out waxa weeye banaanka ayay aaday to have fresh air si ay u soo hesho hawo nadiifa. She went to many people's homes waa kaneecadii yarta she iyadu went waxay aaday to many people's homes dadyow fara badan guryahooda. Mama mosquito hooyadii kaneecada ahayd was worried way walwalsanayd ama waxay ahayd mid walwalsan. Worried waa walwalid. She was afraid waxay ahayd waa hooyadii kaneecada afraid mid baqaysa that in her baby in canugeeda yarta mosquito had been killed la dilo in la dilo ayay ka baqanaysay. When the little mosquito the little mosquito kaneecadii yarayd returned ay soo laabatay. Mama mosquito hugged her hooyadii kaneecada ahaydna hab ayay siisay. Ereyga hugged waa habsiin. Hugged her hab ayay siisay. Hertana waxaa looga jeedaa waa baby mosquitodii kaneecadii yarayd hab ayaa la siiyey. Where have you been? Asked mama mosquito hooyadii kaneecada ayaa weydiisay. Where have you been? Ayay tiri xaggeed jirtay ama xaggeed aaday. Asked ayaa weydiisay mama mosquito hooyadii kaneecada ahayd. I went to people's homes. anigu went waxaan aaday bay tiri to people's homes dad guryahood ayaan aaday. anigu went waxaan aaday bay tiri mal kale to their bedrooms qolalkoodii jiifka ayaan haddana aaday bay tiri. anigu went waxaan aaday bay tiri mar kale to their sitting rooms qolalkoodii yacni fadhiga. Sitting room waa qolka fadhiga. qolalkoodii fadhigana waan aaday. Anda iyo even xitaa anigu went waxaan aaday to their bathrooms suuliyahooda quwayska. Said ayaa tiri sidaasi the little mosquito kaneecadii yarayd. It must have been very scary. malaha waxay ahayd mid aad u cabsi badan. It must have been very scary. malaha waxay ahayd mid aad u baqdin badan. Replied ayaa ku jawaabtay mama mosquito hooyadii kaneecada. yacni in aad dad guryahooda aadid oo maxaa ku dhahayay aad qolalkoodii jiifka iyo qolalkoodii fadhiga iyo maxaan ku dhahay suuliyahoodii aadba intaa isku soo wada madhid. It must have been very scary. arrintaa iyada malaha waxay ahayd mid aad u baqdin badan. Replied ayaa ku jawaabtay mama mosquito hooyadii kaneecada ahayd. Oh no alla maya. No alla maya. The people dadku were very happy to see me. aad bay ugu faraxsanaayeen inay anigu arkaan. The people dadku were very happy waxay ahaayeen kuwa aad u faraxsan to see me inay anigu arkaan. Wherever I went meel walba aan anigu aaday people dadku were clapping way sacbinayeen their hands gacmahooda ama gacmahooda. Said ayaa tiri sidaasi the little mosquito kaneecadii yarayd. Mama mosquito hooyadii kaneecada ahaydna shook waxay ruxday her head madaxeeda ayay ruxday. Anda iyo said waxay dhahday softly weliba si jilcan ayaa waxay u dhahday you were very lucky. adigu aad baa u nasiib badnayd my little one yariisteediyey. You were very lucky. adigu aad baa u nasiib badnayd my little one yarteediyey ama yariisteediyey. Do you think su-aashan waxaa la weydiinayaa adiga muuqaalka daawanaya ama sheekada hadda daawanaya lagu leeyahay su-aashan do you think ma u malaynaysaa the people dadku were clapping inay sacbinayeen their hands gacmahooda ama gacmahooda for the little mosquito kaneecada yar darteedana ay u sabcinayeen marka ay guryahooda timaaday ma u malaynaysaa? jawaabtu waxay noqonaysaa waa no. kulay jawaabtu no weeye. sababtana waxaa weeye dabcan marka ay maanta xaafadiina ama qolka qareeca kugu soo gasho waxaa weeye kaneecada waxaa isku dayaysaa inaad dishid oo gacmahaaga ayaad ku raadinaysaa oo laba gacan ayaad ku garaacaysaa si marka aad kaneecada u dishid. soo marka iyadu ilmo yar weeye kaneecada yar waxaa weeye waa iska sheeko yar oo khiyaali ah. waxay leedahay marka dadkii markay arkeen way ku farxiyeen kuma laho oo waxaa weeye gacmahooda ayay ku sacbinayeen. sacbis ma ahayn cid walba waxay ku fikiraysay inay mar un kaneecada ay disho. waa kaasaa marka inta muuqaalkan kiisa xiga ay dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum.